السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيان عبد إبراهيم iyo channelkii Halabuur Ayaan leh marka hore subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada si ay kula dheegtaan qisooyinka la yaab kale ee uu soo gudbiyay channelkani kulanti wacan dhammaan daawadayaal ku soo dhawaada sheekadeennii xiisaha lahayd ee badmaaxa Sindibaad iyo toddobadiisii safarkii shanaad Sindibaad ayaa wuxuu yiri markii aan Baghdad imaaday oo aan muddaha joogay ayaa waxay soo galay damac ah inaan mar kale safro waliba toogtan waxaan niyeystay markaba aan aniga leeyahay inaan ku safro wixii aan isdiyaariyay ugu dambeyn markaba ayaan iibsaday waxaana ka buuxiyay badeeco aad u fara badan anigoo qaybtii soo hartayna ganacsato kale ka kireeyay waxaana isku soo daynay ilaa iyo badii waxaan bilownay inaan safarkii guda galno aan maalinba jasiirad ku istaagno badeecadana ka iibino ilaa aan maalintii dambe jasiirad ka imaanay waqtigaas aniga aad ayaan u daalanaa sidaas awgeed waxaan ganacsatadii u sheegay inaan xoogaa yara seexanayo ee haddii ay iyaga rabaan ay baxaan ganacsatadii ila socotay markii ay markabka ka degeen oo ay jasiiradii gaareen ayaa waxay arkeen wax weyn oo cad misna sidii qubada u wareegsan markaas ayay bilaabeen inay hubiyaan wuxuu yahay waxayna ku garaaceen dhagaxaan ilaa uu wixii weynaa ee caddaa ka dilaacay waxayna ahayd haad weyn ukuntiisa ay ukuntii dilaaciyeen ayaa waxaa ka soo baxay ilmihii haadka oo markaas noolaa sidoo kalena maalin ama 2 maalmood inuu ukunta ka soo baxo uga dhinayd markaas ay haadkii ilmihiisii qasheen misna bilaabeen inay hilbihiisii karsadaan aniga muddada intaas leeg oo dhan waan hurday markii aan soo kacay ayaa waxay ii keeneen hilbihii ilmihii haadka markii aan weydiiyeyna siday wax u dhaceen ayay ii sheegeen anigii madaxa ayaan qabsaday waayo waxaan ogahay waxa ay sidaas yeeleen inuu yahay haad weyn ukuntiisii haddii uu noogu yimaadana misna uuna arko sida ukuntii laga dhigay ay noo dhammaatay markaas ayaan bilaabay inaan labadii qayliyo anigoo leh war soo cararay haddii aad naftiina ka naxaysaan soo cararay intii aanba hadalka dhammaynin ayay hal mar qorraxdii qarsoontay mise waabahaadkii oo soo socda markaas ayaan bilownay inaan markabkii jiheeyo baddana ku sii daayo rakaabkiina iyagoo ordaya ayay markabkii isku soo shubeen shimbirkii haadka ahaa markii uu arkay sida ukuntiisii laga yeelay ayuu aad u carooday wuxuuna bilaabay inuu sidii gugaca u qayliyo waxaana isla markiiba meesha yimaaday shimbir kale oo isaga la eg waxayna bilaabeen inayna soo eryadaan hase yeeshee badda ayaan isku sii daynay shimbirihii markii ayna arkeen ayay naga laabteen aniga waxaan niyada iska dhahay alxamdulillaah marba haddii ay idinka laabteen waxaana bilownay inaan safarkeennii sii wadanno wixii aan soconnaba markii aan cabbaar soconnay ayaan waxaan arkay 2 shimbir oo na soo daba socda laakiin markan keligood ma aysan ahayn ee dhagaxmaan ay lugaha ku wateen dhagaxaantaasoo aad u waaweynaa sidii ay marba marka ka sii dambaysa noogu soo dhowaanayeen ayay markii dambe dhagaxaantii oo aad u waaweynaa nagu soo daayeen iyagoo weliba si daran markabkii ugu garaacay wuxuuna markabku noqday mid biyaha u nugul oo sii quusay ilaa uu moolka badda ka gaaro annagana aan dhammaanteen ku maanshowno aniga waxaan gudagalay sidii aan naftayda ku badbaadsan lahaa waxaana gacanta la helay alwaax weyn anigoo soo qabsaday ilaa uu iga keeno xeebta jasiirad aad u qurux badan oo ay ka baxaan nooc kasta oo miro ah sidoo kalena waxay lahayd ilo biyo macaan leh markaas ayaan murugtii iyo kurbadii ahaysay iska ilooway waxaana bilaabay inaan mirihii iska cuno ilaa aan ka dhargay galabtii markii la gaaray ayaan isdhahay maad jasiiradda soo fiirisid waa intaasoo dad ku nool yihiine halkii ayaana ka soo kicitimay sidii aan jasiiradda ugu wareegayay ayaan markii dambe waxaan arkay oday da'ah kaasoo hagoo ka dhigtay caleemaha geedaha misna meel qorrax ah fadhiyo keligiis waxaan isdhahay odaygan amuu ka mid yahay rakaabkii markabka isla markaasna uu badbaaday waxaana bilaabay inaan u soo dhowaado ilaa aan markii dambe kor imaado hase yeeshee ma uusan ahayn oday aan aqaano rakaabkii markabkana kama mid ahayn waan u soo dhowaaday anigoo bilaabay inaan weydiiyo su'aal ah sheekhow maxaa kugu dhacay maxayna tahay sababta aad keligaa cidladan u fadhiso odaygii wuu isoo fiiriyey hase yeeshee ilama uusan hadlin wuxuuna ii tilmaamay inaan jidka ka qaado oo aan geedka hoostiisa dhigo markaas ayaan bilaabay inaan garab siiyo anigoo niyadda iska leh odaygan miskiinka ah garab sii waxaana ku soo qaaday garbahayga anigoo la soo aaday dhankii uu geedka naga jiray markii aan geedkii hoos keenay
ayaan isdhahay odayga deji, hase yeeshee ma ahan mid degaya. waxaana isku dayey dhowr mar inaan dejiyo, laakiin ha sheegin waxaan la hadlay odaygii si uu iiga dego anigoo ku leh geedkii hoostiisa waan ku keenay ee deg, laakiin ma ahayn mid ila hadla. markii dambe ayaan gadaal dhabarkayga dhanka garbaha ka dareemay dhaqaaq. waan fiiriyey, waxaan se arkay arrin la yaab leh. waxaan arkay lugihii odayga oo isku beddelay kuwa aad u madow, sidoo kalena dhabarkayga sidii gacmaha oo kale u haysta. markaas ayaan isku naxay. waxaan isdhahay odayga iska tuur, laakiin ha sheegin ma ahan mid dhacayo, ilaa aan markii dambe ka war helay odaygii oo madaxa iga garaacayo, weliba garaacis aad u xanuun badan, ilaa aan ka wareero istaaggana ka dhaco. cabbaar markii aan wareersanaa ayaan soo naaxay, waxaana arkay odaygii oo weli dhabarka ii saaran iguna dheggan. sidaan moodayey ma ahan, wuxuu noqday mid aad u xooggan, waxaana la yaab igu noqotay siduu dhabarkayga u saaran yahay oo uu ugu dheggan yahay ugana dhacaynin. sidoo kalena wuxuu raba ayuu iga samaysan karay, waayo wuxuu ahaa mid aad u xoog badan, anigana ma lahayn tamar iyo awood aan ku khilaadi karo. waxaana noqday sidii neef u liijaanta u hayo dhankuu doonana u hagi karo. odayga wuxuu ahaa mid sidaas dhabarkayga u saaran, sidoo kalena haddii aan hadalkiisa khilaafo uu i garaacayay, xitaa haddii kaadi iyo saxaro qabato igama uusan degaynin oo korkayga ayuu ku samayn jiray. wuxuu igu amray inaan geeyo beer uu ii tilmaamay, taasoo ay ka baxayeen noocyo badan oo midho ah, wuxuuna ahaa mid midhahaas cuna kuna nool. midhaha beerta waxaa ka mid ahaa cinabka, waxaana aqaanay sida midhaha cinabka loo khamiiriyo islamarkaasna khamri looga sameeyo. markaas ayaan bilaabay inaan midhihii khamri ka sameeyo. markii aan khamrigii sameeyey ayaan bilaabay inaan cabbo si aan isku ilowsiiyo kurbadan iyo hamigan adduun ee aan ku jiro. odaygana wuxuu ahaa mid ii arko waxaan samaynayo, wuuna i weydiiyey waxay yihiin. markaas ayaan u sheegay, kadibna keen ayuu dhahay, waana u dhiibay isagoo dhammaan wada cabbay. markii uu odaygii khamrigii cabbay ayuu wuxuu bilaabay inuu qoslo, kadibna fooriyo, wuxuuna ahaa mid aad u sakhraansan. taasna waxay ii noqotay fursad aan uga takhalluso. markaas ayaan si tartiib ah isaga dejiyey, mana uusani dareemin maadaama uu aad u sakhraansanaa. markii aan ku guulaystay inaan odaygii iska dejiyo ayaan dhulka seexiyey, waxaana soo qaatay dhagax weyn anigoo ka cabsanayay inuu igu soo kaco. markaas ayaan dhagaxii weynaa madaxa uga garaacay ilaa ay dhiiggiisii iyo hilbihiisii isku darsameen oo madaxii aan ka baduujiyo, waxaana u dilay si naxariis darro ah. muddadii aan odaygaas dhabarka ku siday waxaan dareemay ciriiri aan weligay horay u dareemin. wuxuu ahaa mid korkayga ku kaadiya kuna saxarooda, si xunna ii garaaca. alxamdulilah, ugu dambayn waan ka takhallusay. markii aan odaygii dilay kana takhallusay ayaan ku fikiray sidii aan jasiiraddan uga baxsan lahaa. waxaana bilaabay inaan ururiyo jirridda qaar ka mid ah geedaha jirriddaas oo ku yaalay, anigoo isku xirxirayo si aan uga sameeyo wax yar oo doon u eg, taasoo aan jasiiraddan uga baxsado. markaan hawshii dhammeeyey ayaan baddii isku soo daayey, ilaa aan maalinkii dambe doon ay dad saaran yihiin la kulmay. dadkii ayaana sidii ku raacay. dadka waxay ahaayeen kuwo u socda deegaankooda, kaasoo ahaa jasiirad badda korkeeda ku taallo, waxayna jasiiraddaas ka dhaxaysay daayeero iyo dad, iyadoo daayeerada ay habeenkii jasiiradda soo gali jireen xilli dadkana ay maalinkii oo dhan joogayaan, habeenkiina guryahooda ku hooyan jireen. mana jiro dad habeen soconaya ama daayeer maalinkii soconaya. nidaamkaas wuxuu ahaa mid u degsan oo heshiis horay uga dhexeeyeen ayuu ahaa, waxayna dadka ii sheegeen inay iyaga iyo daanyarada oo ah kuwa aad u waaweyn, sidoo kalena aad u xooggan, ay jasiiraddaas wax badan ku dagaalameen, sidoo kalena dad badan ku waayeen. hase yeeshee ay ugu dambayn heshiiskaas gaareen. sababta ugu weyn ee dadka iyo daanyaradaas jasiiradda isugu haysteen waxa ay ahayd jasiiradda oo ahayd mid barwaaqo ah, sidoo kalena nooc kasta oo miro ah ay ka baxayaan. waxayna lahayd biyo aan go'in, aadna u macaanaa. markii aan jasiiraddii in muddo ah joogay ayaa maalintii dambe waxaa jasiiraddaas yimid markab ay wateen koox safarley ahayd. waxaana u sheegay inaan dhulkan qariib ku ahay, iina oggolaadaan inaan raaco si aan dhulkaygii dib ugu laabto. wayna iga aqbaleen. in muddo ah markaan jidka ku soo jiray ayaan ugu dambayn imaaday magaalada basra, waxaana uga sii gudbay magaalada baqhdaad. laakiin toogtan waxaan ahaa midaan wax hanti ah wadanin
oo misna faramaran waxaana ku faraxsanaa anigoo bad qabo inaan magaaladaydii nabad ugu soo laabtay. sidaas ayuuna ku dhammaaday safarkii shanaad.